adduunku aakhiro xidhiidhku la leeyahay waa maxay xidhiidhku la leeyahay waxa weeyaan xiska qofka muslimka ee dhabta ah adduunku waa dariiqii aakhiro loo marayay hadday cibaado tahay noloshoo dhan buu cibaado u arkaa xoogsiga xalaasha ahi cibaadadu ka mid yihi marka dambe ilaahay dartii loo bixiyana cibaadadu ka mid yihi kafaafka aad noloshaada adigu dabari kartaa cibaadaday ka mid tahay baryadoo aad iska dayso aad sooshiyaal wax weydiisanay cibaadaday ka mid tahay inaad isku fillataa cibaadaday ka mid tahay qofka muslimkii inuu noqdo moodhal lagu daydo cibaadaday ka mid tahay qudwa xasana inaad noqotaa cibaadaday ka mid tahay in marka tusaale la soo qaadanayo aad adigu noqoto qofka moodhalka xumaha loo qaatay caydha ku nooli diinyariday ka mid tahay diinyariday ka mid tahay bal dadkii aan rabay inaynu moodhal u noqonno hadday iyagii adiga ku yasaan waa diinyari haddaynu innagu noqonno dadkaba dadka diinta ka hor taagan idan waxa aan rabaa inaynu u fahmno waxa weeyaan adduunka ha jeclaanin gacantaada ha galo laakiin yuu qalbigaaga gelin gacantaada goormuu gelayaa goorta aanu wasni badan cunistiisuba kula lahayn marka isaga kaa mid tahay inaad faasuuliyad cunto iyo inaad biiso cunto inaad garow cunto iyo inaad maxay inaad digir cuntaa digirta marka la cuno iyo biisada marka la cuno jidhku intuu u baahan yahay labadaba uu ka helaa calooshu ma kala taqaana waxa lagu riday inay biiso tahay iyo inay digir tahay calooshu waxay taqaanaa in vitamins ay hesho proteins inay hesho fats wixii ay u baahnayd inay hesho waxaasuu maana ka dhuuqdaa waxa laysi dheeraya waa maxay waa dhadhanka afka carabkaa kala sheegay inay biiso tahay iyo inay digir tahay intan carabka saxaabadii way ka adkaysteen intan carabka way ka adkaysteen laakiin caloosha waxay u oggolaadeen waxay u baahnayd inay hesho waxay u baahnayd inay hesho protein iyo vitamins waxay u baahnayd waxay aqbaleen inay noloshan bini aadamka ay mas'uuliyaddeeda iyagu qaadaan oo ah qiyaadati albashariya bini aadamka inay hoggaamiyaan oo xaqa ku hoggaamiyaan qof qaawani soomaalidu waxay ku maahmaadaan laba qaawani isma qaada bay yidhahdaan qof qaawani bashar kalena ma hoggaamin kara adaaba qaawani waxaad u baahan tahay si aad basharka u hoggaamin karto inaad noqon karto moodhalkii lagu dayanayay nebigu calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisa wuxuu uga warramay qiso dadkii hore dhex martay oo ah laba nin ayaa dhulka la iibsaday xadiiska bukhaari ku yaalla markay dhulka la iibsadeen ayaa kii dhulka iibsaday wuxuu ka helay kuus ama kuusad ashuun ama jalxad ayuu helay dahab ku jiro oo dhulka ku jirtay waxaan shareecada islaamiga rakaaza loo yaqaano laakiin qoladani waa shareecadii inaga horraysay bahashii buu soo qaaday dhulkii uu ninka ka iibsaday buu ka qoday dabeetana intuu soo qaaday buu u keenay ninkii wuxuu yidhi war nin yahow jalxaddan dahabka ah baan ka helay dhulkii ee anigu melihiiya adaa lehe qaada buu ku yidhi ninkii kale wuxuu ku yidhi isaguna waanana melihi oo haddaa yaala de wuxuu yidhi anigu dhulkaan kaa iibiyey wixii ku jirana kama warhaynin adaa isule adigu qaado innaga dahab dhalaalaya haddaad aragto dhareerkaaba kaa soo day lahaatee adigaa le iyo warkaasi ha dambeeyo sidii aad u yeelan lahayd baad 5 sheekh soo weydiin lahayd sheekh dhul haddaan wax ka helo maanigaa le mise ninkii horaa le waa fatwaad raadinaysaa inaad intaa ku qaadato waayo markaad bidhaantiisa aragtay ayaa gurigu bilaabmaya ama ninka kani waxaaba la qiimay yar dahabku lamacaan lama leh dhalaal lama leh sidaa ogeed buu wuxuu ku leeyahay intuu iska soo qaaday kii meesha sii joogay waar adaan dhulka kaa iibsada adaa leha qaado kiina wuxuu yidhi waar anigu melihiye adigaa leha qaado waxay tagtay markaa maxkamaddii dunida ugu cajaa'ib badnayd maxkamadaha maxaa loo tagaa waxaa loo tagaa laba qof oo wax isku haysto maxay leh mid waliba leh anaa leh markaasaa xaakim loo baahdaa laakiin hadday noqoto adigaa le miya xaakim loo baahdaa lama baahdo laakiin nimanka kan adaal iyo adaale baa lagu kala bixi waayo dabeetana xaakim baa loo baahda nin baa laysula tego waxaa la yidhi noo garnaq maxaan idinku garnaqaa buu yidhi nin baa wuxuu yidhi dee sheekadii baa la sheegay adaal iyo adaale baanu isku haysannaa waa maxkamad qariiba markaa adaale iyo adaale baa la isku hayaa ninkanna noo garnaq baa la leeyahy wuxuu ku yidhi markaa waaye gartiinnii baa naqay su'aal baan adiga ku weydiiyey alakumaa waladun
carruur ma leediin mid baa yidhi inan baan leeyahay kii kalena wuxuu yidhi inan baan leeyahay gartaa waxaan ku naqay buu yidhi haddaba inankaa iyo inantaa inta isu guurisaan xoolahana ku sadaqadeeya iyaga ku bixiya inankaa iyo inantaa inta isu guur maxaan xadiidka uu soo qaadanaya waxaan u soo qaadanaya waxa weeyaan islaamku wuxuu ina farayaa xooluhu inaanay qalbiga inaga degin inay gacanta inaga degaan islaamku inama farayo faramadhnaada oo qaawanaada dhammaantiin laynama farayo laakiin waxaa layna farayaa xooluhu gacantiinna ha ku jiraan ilaahayna ku adeeco wixii laydin ku bixiya markaad soo xoogsanaysaan xalaal ku keena markaad bixinaysaanna xalaal ku bixiya islaamku wuxuu ina farayaa adduun iyo aakhiro kala soocani ma jirto ee waa shay qura ee adduunkana ku nooshiin intaad joogtaan dad muntajiin ahaada islaamku wuxuu ina farayaa noloshoo dhammi waa cibaado qul inna salaatii wa nusuki wa maxyaaya wa mamaatii lillahi rabbi alcaalamiin laa shariika lah وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إذن إخوتي في العقيدة درسكو حقوق كوبي مركا أركتدا الصوفية دا ما قبناها دونك كتوغو مساجد قلق بس أركتدا حوكسي قاها اسكو حوكسي تقا رقوا رقي حوكسي دانا ما قبنو حتى ما قبنا أركتدا ورانيسا ساعدنا سوى عبادة ساعدنا حوكسو waxaanu qabnaa aragti odhanaysa saacadda xoogsigana cibaado ka dhig saacadda masaajidkana cibaado ka dhig noloshaadoo dhan cibaado ha noqoto noloshaadoo dhan ilaahay ku ateec subxaana wa tacaala adduunkaagu ha noqdo beertaada aakhiro u fadhanaysay meeshaad rabtay inaad aakhiro u beerato adduunkaagu ha ahaado hadduu yahay mid cilmiya hadduu yahay mid maadiya hadduu yahay mid lacageed sidaa awgeed baa waxaan ku tilmaamaynaa saxaabadan waaweyn aan leeyahay nin waliba milyanuu ka dhintay maxaa milyanadooda u maqli weydeen waxa u maqli weydeen taariikhdooda milyankan waxa lagu faaniyo waxa buuran ka ahay waxa lagu faanaa waxay ahayd in ilaahay la adeeco waxa laga yaabaa intiina haddaan idin weydiiyo Zubayr milyaneer maaha qof garanaya inaanu jirin laakiin marka la yidhaha casharatul mubashiriin ma ku jiray ha Sacd ibn Abi Waqqas milyaneer maaha qof garanaya ma jiro laakiin haddaan idhaha casharatul mubashiriin ma ku jiray waa la garanaya Cabdiraxmaan ibn Awf Uthmaan ragga kan inay casharatul mubashiriin ku jireen baa macna samaynaysa inay lacag haysteen macna samayn mayso koodii faqiirka haya koodii lacagta haystay waxay ku kala mudnaayeen baa inna akramakum cinda allaahi atqaakum sida daraaddeed adduun waa la hayee adduunkan qiimaha ahayn ee aakhirada qiimaha ahayd iyo wuxuu aakhiro ka gooyo marka waxaan idin leeyahay adduun haydin soo galo laakiin yuu noqonin adduunku mawaasiinta ooyee intaynu saagnayna noqon wallahi ninka haybar waa nin baacbishtiro weyn dabeetana waa laysu soo taagayaa damar dumaal qabeeyey kanina waa mid aan waxba haysanin oo laysu soo taagi maayo miqyaaskaas wuu qaldan yahay miqyaasku waxa weeyaan kii ilaahay adeecu baynu isu soo taagaynaa hadduu xoola haysto ilaahay adeecana fa ahla wa sahlan waa nin mu'mino fiican hadduu faqiir iyo ilaahay adeeca waxay leenahay ahla wa sahlan waa mu'min fiican mawaasiintu yay qaldamin هذه واحدة موازينته يا قلدمين أدونكنا هالنقطة طريق آخر اللي قارو والله أعلم بالله التوفيق والسلام عليكم